cadaaladda hanfaarka ka codsayna madaxweynaha inuu ku dadaalo ilaahayna waxaan leenahay tawfiiqda waafajiyo qolada la shaqeynaysa iyo qolada la shaqeyn doontana sidoo kaleetood ayagana ilaahay tawfiiqda waafajiyo ninka meesha ka tagayo isaguna si wanaagsan u tago waxaan leenahay meel khayr ilaahay hageeyo ilaahayna qulubteena ha isu kayna dumo naf kasto ilaahay abuuriyaa ayuha alladina aamanu taqullah waltandur nafsu ma qadamat lighadin naftu hafiiriso berrito waxay kasbanayso hormasayso ma qadamat lighadin qof walba maanta waa noolnahay ilaahay baana keena koomka muddo yaraan noolahayna kadibna waxaan u soconaa xisaab minha khalaqnaakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إلهي وحولي أنا إذا أبوري بذيتنا أنا إذا عشهاي تارة أخرى مركا نوائد صبحها هذه اللي صبحي وحل اللي وقيا مركا إلهي محاد يقول عياري ما ضيه كرتا ليه ما كرتي جير كاغانا هضلا يبرقيا أرضاد وحي شيغيسا وحي أتخف شيء وأفعاله فما إيا الصمال يومئذ تحدث أخبارها إلهي عن رجينا إنه خيرنا وافجيه بارك استوى الجنة وفقنا الله بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هارون آد أيو أمها سيهي ونار بريستول آد أيي سوي بدين عاوة أثيق وحنا مرينا يا رقي دمربا هل كان عاوة ويكم نغدان waxaa kaloo jira dadiyo kala duwan marti kala duwan oo ka yimid meelo kala duwan oo ka tirsan wadanka UK waxaynu leenahay idinkuna waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan waagan cusub ee u bariyay Soomaaliya waa I think fursad aad iyo aad u wanaagsan oo u baahan in aad iyo aad looga faa'iideysto dowladii xamray fadhisaa annagana waxaan looga baahan yahay أنا إذا كيرو ومرتي شرف إنه قلت من مقالة لندن والله سعطان ومال هذه يعرفه ومستر حسين والدكتور حسين علي وإنه قلت صوصف في مقالة لندن دكتور حسين كسر وميكروفون كان waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo xafladan aad iyo aad loo soo abaabulay haddii aad tihiin reer Bristol annagoo ka nimid meel fog magaalada London waan ku faraxsanahay waxaan rabaa marka ugu horeyso salaan dabadeed inaan marka ugu horeyso aan taariikhda dib u jaleecno xafladan waxaan filayaa taytalkeeda wuxuu ahaa soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoonka baarlamaanka iyo guud ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed iyo haddii eebidinkiisa leeyahay sii sagootinta madaxweynihii hore ee TFG-ga Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaan filayaa haddii aan taariikhda dib u jaleecno waa very important inaan ka hadalno iftiinka maanta aanu daawanayno waxaa noo dhaliyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu gaarsiiyey meel aad muhiim u ah iftiin noo muuqdo in waddankeena maanta doorasho lagu qabto in baarlamaan lagu soo doorto in madaxweyne lagu soo doorto maalintuu imaanaya asaga kursiga fadhiisanaya waxaasoo dhan suuragal maanay ahayn aniga marka iyo intiinan meesha fadhido waxaanu leenahay thank you halkaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tahniyadeeyo baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed dhammaantood guddoonka baarlamaanka Professor محمد عثمان محمد جواري بروفيسور جواري وانين خبرة وين ولا ماموركا وانين قيم جدا له وانين أبانتي هذا له وانو مجيه هنتي ترشدي هذا سعودي وحكم مجيه خير كسنما آدي تاسو أنا اللي إنكري كلماته
waxaanu ka codsanaynaa inuu sidaa iyo si kasii xoog badan oo kusii wado halkaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u hambaleeyo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Mohamud. Dr. Hassan waa nin aan ku tilmaami karo aniga nin muxadram ah. muxadram waxaa la yidhaahdaa الشخص الذي يعيش بين عصرين waxa uu noolaa xilligii ka horreeyay dagaaladii sokeeye xamru ku noolaa waxa uu noolaa xilligii dagaalada sokeeye ay ka jireen wadanka marka waa nin annaga naga khibrad badan nagana yaqaan aqoonteedu uu leeyahay kartideedu uu leeyahay sidaa darteed waa ka dhan yahay in wax la faro annaga halkani waxaan ugu nimid inaanu taageerno inaanu u tahniyadeyn runtii wadankeena change ama isbedel uu u baahan yahay change ama isbedel weyn ayuu wadankeena u baahan yahay waxaan filayaa inuu karteeda leeyahay inuu awoodeeda leeyahay runtii isbedel markii la yiraahdo waxa asaas u ah in la helo marka hore cadaalad ijtimaaciya in la helo haddii cadaalad ijtimaaciya la helo waxa imaan kara markaas sinaan ijtimaaciya ayaa imaan karta haddii sinaan ijtimaaciya ay timaado waxa imaan karo midnimo Soomaaliyeed imaan karto waa halkaasi halkaan u soconay inaan helno midnimo Soomaaliyeed inaan helno midnimo Soomaaliyeed markay timaado waxa imaan karo horumar baa imaan karo markaas waxaan filayaa inuu ahal u yahay waxaasoo dhan asaga iyo guddoonkiisa baarlamaanka iyo guud ahaan baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed qof kastoo bini aadana daliil iyo wanaag buu leeyahay Dr. Hassan marka waxaan leeyahay wanaagaada ha bato kulli bini aadan daliil lagu waymaayo wanaagaada ha bato waxaa jira dad fara badan ama qabaa'il Soomaaliyeed oo fara badan oo dawladda hore TFG-ga iyo albaabada ka xiratay waxaan ka codsanaynaa doctorka inuu albaabada u furo waana ku dayay meesha ay joogeen sababtu waxay tahay haddii aan saas aanay dhicin cadaalad ma imaanayso haddii cadaalad aanay imaaninna midnimo Soomaaliyeed ma imaanayso halkaasaan uga danleeyahay marka professorku waxaan ka codsanayaa Dr. Hassan inuu albaabada u furo qabaa'iladii hore ama dadkii hore ee dawladda TFG-ga ee albaabada ka xiratay walaalayaal waa mahadsantihiin martigelinta iyo sida aad ugu sharafteen makaroonka aad iyo aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.